wixii tagay waxba kama bedeli kartid ilaahay wuxuu tilmaamayaa wama tashaa'una illa an yashaa Allah ilaahay wuxuu doono mooyaane wax kale oo idinku dooni kartaan ma jirto in allaha kaana caliiman xakiima bal waxaad ka calaacalayso waxaba laga yaabay khayrku saa ku jiray wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum ha oranin bal ma haddaan sidaa iyo sidaa yeeli lahaa waxaasaa soo bixi lahaa saasaa noqon lahay weligaa ha moodina wakhtigu ku dhaafay dadka barbaa isle wakhtigiiba tegaya intaan meesha fadhiyay inta kuu hadhay cimriga baa wax soo saar yeelan karta biniaadamku caqligu ka gaboobaa haddaad maanka ka gabowdo ayuumaad gabowday waxa laga yaabaa dadka badhaysa oo maanta konton jir baad ama waxbaad baran karaysaa dad baa konton jirraynta ku bilaabeen culimmadii ugu waaweynay dunida noqday nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo taa inugu dhiirinaya wuxuu tilmaamayaa in qaamat isaaca wa fii yaddi axadikum fasiila fain istataaca an laa taquum xataa yagrisaha falyagrisha nabigu wuxuu leeyahay hadduu qiyaamuhu xaggaa ka soo bilaabo soo kaco oo aad gacanta ku hayso fasiilada waxaa la yidhaha geetimireedka yara la abqaalayo geetimireed yar aad gacanta ku hayso haddaad ka gaadhsiin karta inaad abqaasho buu nabigu leeyahay abqaal beer haddaad ka gaadhsiin karta beer oo innaga iyadaan qiyaamaba inaan arkaynin baynu fadhinaa unoo leenahay waan gaboobay soomaalidu dee 40 jirkay ku gabowdaa soo maha qofku soomaaligii markuu bini aadamkuba u xoog badnaa markuu gaadho ayuu yidhaahdaa waan gaboobo wax waliba way ga dhammaadeen ilaahina wuxuu ina leeyahay walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclawna in kuntum mu'miniin war dadka mu'miniintow wahniyuu idinku dhicin ha niyad jabina hana murugoonina idinkaa korreeya baa ilaahay tilmaamayaa haddaa kuwa mu'miniina tihiin haddaad dariiqa iimaanka raacdaan waa korraynaysaan xataa markan awooddaadu intaad qaban kartaa ha yaraata laakiin intaa qabo qof wax soo saar le ahaw qof wax tara ahaw noloshaada maalintii waxaad qabanaysaa waa inaad isweydiisaa ma manfac adduun buu kuu leeyahay mise manfac aakhiro kuu leeyahay haddaad waxa labadaa ka dhex arki weydo waa wixii lagu yidhi ka tag saawgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa qabla almowt in furas jiro inta geerida ka horraysa inaad fursad haysato fursad wax lagu qabto inaad haysato waxaad yaraysanaysaa wax weyn noqda waxaad yaraysanaysaa maxaan uga jeedaa sadar quraana inaad qaybtaa waa wax kula yar soo maaha waxaad isleedahay oo haddaan maalin kasta sadar qaybo goormaan qur-aanka dhammayn haddaan sadar qaybo goormaan qur-aanka dhammayn waxay dhahaan 12 sannadood waad ku dhammaynaysaa haddaad maalin kasta sadar qaybto hadda waa sadar hal sadar waxay dhahdaan waxqabadku taraakumka beeritaanku qiimaha ku sameeya markanaad qabanayso wax yaraantiisa ayay kuu muuqanin haddaad maalintii hal safxa qorto hal page haddaad maalintii qorto sanadkii imisaad soo saaraysaa ugu yaraan 2 buug baad qori kartaa sanad kasta waayo sanadku waa 365 maalmood haddaad maalin kasta page qorto macnaheedu waxa weeyaan ugu yaraan buug 300 page ka badan ayaad qori kartaa laakiin haddaad tiraahdo ma xaashi aan qoray baa buug noqon doontaa maxaan xaashi ka qori doona aqoontu iyo waxqabadku iyo waxtarku taraakumka inay biirtaabay wax ku noqotaa wax kasta oo biira aakhirka wuxuu tagaa maxay wax qiimo leh buu noqdaa taasa waxay keensanaysaa inaad waqtiga waxba yaraysanin ma garanaysid cimrigaagu intuu ku gabagaboobi doono ma garanaysid inta ilaahay adiga chance ku siiyay adigoo waxa ku xilka ku saaran wuxuu yahay inaad rumaysato cimrigu wali mutasac baa jira aqoon darradu waxay keentaa qofku inuu waxba qaban waayo dad badan oo maanta Soomaaliyeed iska fadhiya waxay la fadhiyaan waxay qabtaan bay garan waayeen jahliga fadhiisiyay beersi loo qoto ma garanayo wax kale si loo sameeyo ma garanayo aqoon si loo barto ma garanayo jahli baa fadhiisiyay jahligu marka dadka uu duleeyaa idan aqoontu iyo cilmigu waa min alquwa المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير قوة الشيء يا قونتا كمدة تقدر تقف أيضا جهلني ما هيساتا ولو حوق بدني ولو الذكاء جيسو intelligence كيسو وصريه ولو عقل بدني هاي مر هدان منتج هنا وحصو صارين هاي هدان نولش وحا قيمه كو سميهيا
ما هيند عقل بدنتي waxa weeyaan bay yiraahdaan inaad hardware kartahay nolosha taas raad ku leh qof xoog wax u qabtay inaad tahay garadka badan hadduu hurdo dhalo waxba tari maayo si kastoo aad daki u tahay haddaad qof laysiyatay qof aan firfircoonayn haddaad tahay garad bandidu waxba kuu kordhin mayso oo dadka badh baa wahsiga iyo hurdada mooda inay nimco tahay waa raaxaysanaya buu leeyahay deetana uu jiifaya saa baktiga waxba nolosha hurda kuma soo kordhiso qofku waa inuu hurdada seexdaa intuu uga baahnaa intuu caafimaadkiisa ku ilaalinayay intuu nashaadada jidhkiisa uu dib ugu soo noqonaysay waxay yidhaahdaan daraasaadka cilmiga ee dambe xataa caafimaadka qoladan maanta ka shaqaysa waxay tilmaamayeen daraasay tilmaameen cilmiga Hong Kong ay ku sameeyeen oo dadka Hong Kong baadheen markaas waxay yidhaahdeen wax qabad la'aanta iyo sigaarka bulshada keeba dadka leyntiisa ku badan bay leeyahay sigaarka waxa la wada yaqaan inuu sun yahay oo boysiyo dadka laay cagsiga iyo iska fadhiga ka batay iyagu daraasaday sameeyeen maanta waa kuwan yiraahdaa xanuunada ugu tirada badan ee bini'aadamka ku dhaca waxa keena bay yiraahdaan maxay exercise laan exercise la sheegay inaad boodboodo quran ma waa inaad wax qabato laakiin haddaad iska yuurto una fadhidid qof fadhiya habeen iyo maalinba caafimaadkiisa ba khatar ku jira ka kaalay nolosha inaad wax tar ku yeelato iyo wax soo saar inaad yeelato ee waxa khatarta galaya waxa weeyaan maxay adiga caafimaadkaaga ba khatar galaya ولذلك بقى طبعا ما انتوا واحد الماميان قفكوا انه نشاط سكيليو ما معان بعد غبطه ما سكر بعد غبطه ما كم بعد غبطه ما انت صعو انت قبو انت يعني هو wax qabo fadhigu marka aqligana uma fiicna iska fadhigaan waxba lagu qabanaynin jirkana uma fiicna aakhirana uma fiicna aduna uma fiicna laziness marka nolosha meel laba wax kaga male ayuha alhibba ajsigu dad buu gaaray inay xataa awoodi kari waayeen inay ilaahay baryaan acjasu nnaas man cajisa can ducaa dadka waxa u caajisnimo badan dee ninka awoodi kari waaye ilaahay inuu baryo dadka badh ayaa wax kastoo ay qabtaan taswiif ku fahmaya insha allah berraan samayn doonaa war maanta aad qaban karaysaa maxaa berri camal kale u dhigo maya berraan samayn doonaa wax kasta berru u dhigaya ama maahe brogramyo iyo barnaamij buu degayaa markaasuu leeyahay insha allahu saasaan yeelaya sanadka dambe qur-aankaan xifdinaya sanadka dambe waxaan rabaa jaamacadda ee balas inaan kaga baxo insha allah waxaan rabaa waqtiga soo socda tijaaradaasi inaan galo waxaan rabaa kutubtaa inaan dhigto waxaan rabaa cibaadada inaan sameeyo laakiin afku ka leeyahay waa barnaamij afka ah camal ma gaadhayo isuma bedelayo maxay wax camal isuma bedelayo in wax la bilaan gareeyaa ma xuma laakiin waxaad bilaan gareynaysaa waa inuu yahay waxaad awooddo qaban karaysa marka koowaad shay fii maqduurik waa inuu yahay waa inaad qof riyoonaya noqon dadka badh baa day dreaming adoo soo jeeda inaad riyooto maaha waxaanad samayn karayn haddaad iskaga wadwado waa riyo kale un dadkii hurdaa riyooda dadka soo jeedana qaar baa riyooda oo mar haddaad waxaanad qaban karayn aad ka fekerayso waad riyoonaysaa waxaad balaangaraysay waxaad qaban karto waa inuu noqdaa marka labaadna waa inaad fulisaa fulintu dadka badh baa fulanima haysaa armaa dadku kula yaabaa armaa si xun lagu eegaa armaa shaki unbaaba iskaga soo ururaya dadka badh oo wixii uu qaban lahaa u diidaya armaa lagu idhaahdaa waxaan wuu istusaya waxaan kan buu samaynaya laakiin نبي وحينا ليه احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز مرنا بها عاجز مركي إلهي والنبي يحيى الله هدلي وحلالي يا يحيى خذ الكتاب بقوة والنبي يحيى كتابك سيحوغن وقادة بالليل سي جدية سي اجتهاد كتشرو سي الددال يفر فرعوني كتشرته إلهي كتابك سوق قادة بالليل أيها الأحبة مركز وهستطاع ما شوي فولفوشة وحي ما أنت قوها بنا إن قبضت مركز قبض ويدو ويساسي كورتا
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نبي عليه الصلاة والسلام حديث كما حكوت المامية قيب حكو سفينيا قفك مؤمن حقا يسدوغ خير بدن يهي كي ضعفك كتشره. qaybaha dambana wuxuu ku tilmaamayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wasiya uu siinaya dadka muslimiinta ah. wuxuu nabigu yidhi almu'minu alqawiy, mu'minka xoogga ah kaasaa khayrun wa axabu ila allah, ka khayr badan oo allagtiisa lagaga jecel yahay min almu'mini daciif, mu'minka caqiidadiisa ama iimaankiisa ama cibaadadiisa ama acmaashiisa aakhira ay liidato. quwadatan la sheegayaa waa macno ballaadhantay. waxay duuduub ahaan tilmaamaysaa quwadu xataa quwa albadaniya. qisadii matala nebi muuse ilaahay markuu ka warramayey reer madiina u yimi magaalada meesha dadku xoolaha waraabsanayaane habluu laba hablood ay xoolahoodii cidlo ula baxeen. maxaa idinku dhacay buu yidhaha xoolaha u waraabsan weydeen. waxay yidhahdeen annaga aabahayana waa gaboobay, yacni waa daciif maa yaqdir shay. annaguna ma gallo raggu meeshan ay isku jiidhayaan ilaa iyo ay ka baxaan. dabeetana wuu u waraabiyey. hadhow inantaasi markay aabbaheed la hadlaysay ee rabtay ninkan in reerka aanu ka tegina si uun loogu hayo, ayaa waxay tidhi yaa abat ista'jirhu ina khayra man ista'jarta alqawiyu lamiin. aabbow ninkan shaqaalaysiisa bay tidhi oo ajiir ka dhig. ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin bay tidhi. qof shaqo loo dirto waxa u fiican qof xoog leh oo qawiyo wixii qaban karaya ammaanana leh. idan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa mu'minka xooggan oo ay ugu horraysay ilaahay rumayntiisa iyo daacadiisa iyo cibaadadiisa iyo acmaasha aakhira ku xooggan. dad baa jira sida kale u xoog badan, laakiin marka ay timaado cibaadaadka iyo diinta iyo caqiidada ducafa ah. kani kow waa qof baabkaasi ku xoog leh. ka labaad waa qof bay yidhaahdaan muntij ah, qof wax soo saar leh. kaasi wuu ka khayr badan yahay mu'minka daciifka ah. haddana wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wafii kullin khayr, mu'min oo dhanna khayr baa ku jira. hadduu qofku iimaan iyo camal la yimi ha laba kala martabo sarreeye khayr baa ku jira. waxay yidhahdaan culamaa ilbalaaga masaladan oo kale alixtiraaz bay yidhaahdaanoo waxay ku tilmaamaan qofku intuu war yidhaahdo in siyaabo kale aan loo fahmin ayuu ka ixtiraazaa. مثلا إلهي القرآن كوحكويري لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. مص النبا إلهي كوي فتح مكهر تدحولها بحيات دقال الله ما يدين توسوها القمي كوا سا درجة صرية. وفتح مكة وحي كدن بي وحي مركاي السلامية وحقبطيميان وحد وترسيس الهين هداد سيدا وفهم الهيد ويقلدم الهيد. لكن إلهي بكسي جوابه وحولي وكلا وعد الله الحسنى. دمان تود إلهي باوية بوهي وناق لبضو بوناق بيلي على كل نحن وصعنا. وفي كل خير تو إني تلماميسو مؤمن كإيمان صحيح لغاها لا طاعدي سليمي كل بينو خير كسوغيني. لكن مركي تمادا مؤمنك إن كلاسيفيكيشن لغو سمايو إن لكلا صاعو إنه كقوي كخير بدن يحي كضعيف كأبو نبو التلمامي عليه الصلاة والسلام. قاعدة دا مركو نبو الشاقي أيو حينات المامي يا دردارنا نسينيا دردارن كان يوحى وشاقي وحي قفك مؤمن كقوي كدق لها حا قفك مؤمن كحوقي ليا وحي نبو يقول كو احرص على ما ينفعك وحد كد داشاه oo ilaalisa waxa ku anfacaya. nolosha aynu joogno bini aadamku waqti isku mid u haystaa. waqti isku mid ah
inta badan dadku 60 jir 50 jir 70 jir meelaha waa soo wada gaadha laakiin midhaha iyo raadkay dunida kaga tagaan iyagoo isku waqti noola waa kala nooc sababtay u kala noociyina waa mas'alada tan camalka bini aadamku qabta waa saddex qaybood mid inuu yahay qayb ku anfacaysa qayb wax tarta aakhiriya adduun manfacuun leh iyo inuu yahay qayb wax dhibta aakhiriya adduun ma dhibaato kuugu jirto iyo inuu yahay qayb aan manfac iyo madaro toona lahayn laba inaad ka tagtaa markaa la rabaa midna qaadatid wuxuu nabigu leeyahay ixras calaa maa yanfacuk waxaad ku dadaashaa waxa ku anfacaya waqtigaaga iyo maalintaada iyo xooggaaga iyo cilmigaaga iyo aqoontaada iyo hantidaada iyo garaadkaaga iyo waxaad awood leedahay oo dhan waxaad ku isticmaashaa waxa ku anfaca taa macnaheedu waxa weeyaan waxaad ka tagtaa wixii ku dhibaya ka tag waxaad kaloo ka tagtaa waxaan macnaha samaynaynin dadka in badan oo ka midi waxaabay dhib ku ah waqtigoodaba marka waxay raadinayaan waxay ku dilaan waxay ku madadaashaan madadaaladu waa wuxuu rabo qofku inuu waqtigiisa ku baabi'iyo xooggiisa iyo xoolihiisa iyo caqligiisa ku baabi'iyo aan adduunkana manfac ku lahayn aakhirana manfac ku lahayn adduunna wax kama tarayso waxaan u wadaa aakhirana wax kama tarayso qofna isagu wixii dhibayay baabuu waqtigiisii ku bixiyey wax xaaraan oo aan diin ahaan ku bannaanayn oo caqiid ahaan bannaanayn oo ayuu ku bixiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacuk ku dadaal waxa ku anfacaya bitacbiiri ahli lcasri waa waxay idhahdaan kun muntijan aw kun iijaabiyan qof wax soo saar le ahaw qof wax tara ahaw qof wanaagga qabta noqo noloshaada maalintii waxaad qabanaysaa waa inaad isweydiisaa ma manfac adduun buu kuu leeyahay mise manfac aakhiro kuu leeyahay haddaad waxa labadaa ka dhex arki weydo waa wixii lagu yidhi ka tag haddaad manfac adduun ka weydo ama manfac aakhiro ka weydo waxtar ma leh sheekada ugu badan ee soomaalidu ka sheekaysaa waxtar ma leh siyaasadda iyo qabiilka iyo reeraha iyo waxa laga sheekeeyo oo dhambe waxtar ma leh kubadaha iyo cayaaraha iyo wax la daawado oo dhambe waxtar ma leh wararkan habeen iyo maalinba la dhegaysanaya la wado intooda badan waxtar ma leh wax badan aan waxtar lahayn baa dadku waqtigiisa ku qaada nabiguna wuxuu tilmaamayaa min xusni islaami almar'i tarkuhu ma la yacnihi qofka muslimka islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid ah isagoo ka taga waxaan macno u samaynaynin tarkuhu ma la yacnihi waxaan isaga khusaynin waxaan ku khusaynin waxna ku taraynin maanta dhaa dad ka waranto laba gaaloo meel isku dilay kii la dilay adiga waxba ku tari mahaya warkooda iyo akhbaartooda waxba ku tari mayso akhbaarta siyaasiga dad ka sheekeeya inteeda ugu badan waxba ku tari mayso waxyaabahan ka sokeeya iyaguna cayaarahan iyo madadaadadan iyo whatsappkan iyo snapchatkan iyo waxa la wado dhami aktharuhum waxbaabay dhibaan aakhiriya adduunba inta aan aakhiriya adduun manfaca ku lahaynina aan wax dhibinina waa inaan adduun iyo aakhiratoona manfac ku lahayn marka wixii aan manfac ku jirin mid adduun iyo mid aakhiro waa inaad ku xisaabtantaa inaad waqtigaaga iyo xoolahaaga iyo xooggaaga iyo caqligaaga inaad gelinin sida awgeed buu nabigu wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacuk wixii ku anfacaya ku dadaal intaa kadib buu nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam wastacin billaah ilaahayna kaalmayso ilaahay kaalmayso macnaheedu waa in qofka mu'minka ahi wax kasta oo uu qabanayo ama uu ka fakarayo wuxuu rumaysan yahay inuu ilaahay gacantiisa ku jiro qofka mu'minka ee dhabta ahi quruur kuma dhaco iyo cujb isla weyni iyo anaa caqli badan iyo anaa karti badan iyo kaama rumaysana qofka muslimka wuxuu rumaysan yahay ilaahay inuu mar kasta u baahan yahay mar kastaba inuu ilaahay u baahan yahay saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ina baray mar kastoo inuu ilaahay sortaagna inaynu akhrino iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahu adaanu ku caabudaynaa keliga
keligaa baanu kaa kaalmo dalbayna qofka muslimka ahi mar kasta baahidiisa waa qof ilaahay u bandhiga waa qof muujiya inuu yahay addoon daciifa waa qof rumaysan laa xawla walaa quwata ila billaah wuxuu rumaysan yahay waa kanzun ayuu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi ibnu qays buu nebigu yidhi ma ku tusiyaa kanz min kunuuzi ljanna khasnadaad jannada ka mida makuu sheegaa faqultu balaa yaa rasuul allah haa buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow xadiidka saxiixayn ku yaal nebigu wuxuu ku yidhi markaa laa xawla walaa quwata ila billah weeyaan laa xawl xeelad malihi iyo awoodtoona ilaa billaahi mooyaane ilaahay oo aan gargaarsada mooyaane anigu xawl iyo xeelad iyo quwo iyo itaal midna malihi qofka muslimkaahi markaa waa qof baahidiisa ilaahay u bandhiga nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabigii uu jeclaa ee mucaad ibnu jabala wuxuu ku yidhi yaa mucaad wallahi innii la uxibuk ilaahay baan ku dhaartay mucaado waan ku jeclahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasuu mucaadna wuu yidhi ilaahay rasuulkiisii oo aniguna waa ku jeclay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu yidhi kelmadaan ku barayaa ee salaad kasta dabadeed ha ka tegin mar kastoo aad salaad tukato farala erayadan ku dhawaaq erayadu maxay yihiin waa erayada adkaarta aynu akhrino markaynu salaadaha tukanoyn allahuma acinnii calaa dikrik wa shukrik wa xusni cibaadatik wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam mucaad ibnu jabal waxaad tidhaahdaa ilaahayow iigu gargaar xuskaaga inaan ku xuso aanan ku ilaabin inaan kuu mahadnaqo aanan kaa gaaloobin iyo si fiican inaan kuu caabudo ilaahu kaa iigu gargaardhe nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu inagula dardaarmayaa kow ixris calaa maa yanfacak wixii ku anfacaya inaad ku dadaasho waxaan ku anfacayn inaad ka tagto isla markaana inaad ilaahay tala saarato oo ilaahay subxaanahu watacaala aad u tala saarato wax walba wuxuu nebigu raaciyey markaa taa cagsigeeda waxaa dadka u diiday inay wax qabtaan walaa tacjis buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam walaa tacjis ha caajisinku waa maxay qofka bini aadamka laba wax baa ku dhaca bay yidhaahdaan alkasalu waalcajsu bay yidhaahdaan kasalku waa qofka wahsiya cadamuliraada waa qofku aan doonisba lahayn inuu wax qabtaba rabin cajsiguna waa qofkiiyo raba inuu wixii qabto laakiin haddana qaban karila u taagla cadam ilqudra shaqo kastoo la qabtaa waxay dhahdaan labadan shay buu camalku ka kooban yahay inaad waxaad doonaysid iyo inaad awoodid markaasuu camalku kuu qabsoomaya inaad doonaysid inaad qabato iyo inaad awooddo nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu tilmaamayaa inaynan cajsinin dadka badh ayaa wax kastoo ay qabtaan taswiif ku rumaya insha allah berraan samayn doonaa war maanta aad qaban karaysaa maxaa berri camal kale u dhigo maya berraan samayn doonaa wax kasta berru u dhigaya ama maahe brogramyo iyo barnaamij buu degayaa markaasuu leeya insha allahu saasaan yeelaya sanadka dambe qur-aankaan xifdinaya sanadka dambe waxaan rabaa jaamacadda ee balas inaan kaga baxo insha allah waxaan rabaa waqtiga soo socda tijaaradaasi inaan galo waxaan rabaa kutubtaa inaan dhigto waxaan rabaa cibaadadaa inaan sameeyo laakiin afku ka leeyahay waa barnaamij afka ah camal ma gaadhayo isuma bedelayo maxay wax camala isuma bedelayo in wax la bilaangareeyaa ma xuma laakiin waxaad bilaangaraynaysaa waa inuu yahay waxaad awooddo qaban karaysa marka koowaad shay fii maqduurik waa inuu yahay waa inaad qof riyoonaya noqon dadka badh baa day dreaming adoo soo jeeda inaad riyooto maaha waxaanad samayn karayn haddaad iskaga wadwado waa riyo kale un dadkii hurdaa riyooda dadka soo jeedana qaar baa riyooda oo mar haddaad waxaanad qaban karayn aad ka fekerayso waad riyoonaysaa waxaad balaangaraysay waxaad qaban karta waa inuu noqdaa marka labaadna waa inaad fulisaa fulintu dadka badh baa fulanima haysaa armaa dadku kula yaabaa armaa si xun lagu eegaa arma
shaki unbaa bas kaga soo ururaya dadka badh oo wixii uu qaban lahaa u diidaya armaa lagu yidhaahdaa waxaan wuu istusaya waxaan kan buu samaynaya laakiin nebigu wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacak wastacin billaah walaa tacjis marnaba ha caajisin bale nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii u shaqayn jiray anas ibnu maalik ahaa ayaa wuxuu leeyahay anuu nebiga u shaqaynaya wuxuun baan maqlaa isagoo ku celcelinayoo leh allahuma inii acuudu bika min alhami walxasan walcajsi walkasal walbukhli waljubn wadalaci iddayni waghalabati alrijaal isagoo ku celcelinayoo leh ilaahu waxaan kaa magan galay warwarka iyo walbahaarka iyo tiiraanyada iyo murugada hamigu waa waxa soo socda uu qofku ka warwaro mustaqbalka oo la madoobaada oo dabeetana qofku warwaro xusniguna waa wixii ka tegay qofka oo tiiraanyo iyo murugo ku reeba idan waa laba warwar ama laba walbahaar laakiin waxay ku salaysan yihiin midna waa wixii tegay midna waa waxa soo socda nebigu calayhi salaatu wasalaam labadaba ilaahay buu ka magan galay wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay alcajsu walkasal waa labadan xanuun aynu hadda sheegaynay qofku inuu cadami alqudra inuu wax awoodi waayo ama in doonistuba ka dhimato doonistuba inay ka dhimato oo dadka badh baa wahsiga iyo hurdada mooda inay nimco tahay waa raaxaysanaya buu leeyahay deetana uu jiifaya saa baktiga waxba nolosha hurda kuma soo kordhiso qofku waa inuu hurdada seexdaa intuu uga baahnaa uun intuu caafimaadkiisa ku ilaalinayay intuu nashaadada jidhkiisa uu dib ugu soo noqonaysay sida awgeed buu nebigu wuxuu ilaahay ka magan galay wahsiga iyo waxtaryarida wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay bukhliga iyo jubniga jubnigu waa baqaha waa qofku markuu wahsado dee wixii uu ka baqaya dabeetana si aad u sugaysa u leedahay baraad qaban inaad u leedahay ayay iswada fuulaysa hadhowna waxay gaadhaysaa shaqadii waxaanad qaban karinba bukhliguna waa wixii oo anfacaagii aan dadka gaadhaynin wadalaci dayni waghalabati rijaal waxa uu nabigu sheegayna waxa ka ratibma daynta oo kaa xoog badata iyo bini aadamka oo kaa xoog bata xadiidkani waxa uu tilmaamayaa markaynu soo duuduubno qofka muslimka inuu qof active qof nashiita qof firfircoon qof raba inuu wax qabto qof camal adduunyo mid aakhira midun ku foogan qof aan noloshiisu khasaare noqonin ama waqtigiisu khasaare ahayn ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya walidaalika buu nebigu wuxuu tilmaamayaa waqtiyada qaarkood ayacjizu axadukum buu nebigu yidhi waar midkiin miyuu kari waayaya an yaksiba kula yowmin 1000 xasana maalin kasta inaad 1000 xasano shaqaysato miyaad awoodi kari waayeysa nin raggii meesha fadhiyey baa wuxuu yidhi kayfa yaksib axaduna 1000 xasana oo midkaa yeesuu 1000 xasano u shaqaysan karaa 1000 ajara u heli karaa qaala yusabixu 100 tasbiixa fayuktub lahu 1000 xasana dee 100 goor baad subxaan allah odhanaysaa iyo waxa lagu qoraya subxaan allah intay kaa qaadanaysa 100 gooroo subxaan allah waa less than 1 minute ka waran hal daqiiqo oo noloshaada ka mid ah haddaad 1000 xasano shaqaysan karto saacaddii misaad shaqaysan karaysa waxa meesha taalla markaa nebigu wuxuu leeyahay qofkaasi subxaan allahi yidhaahda ee tasbiixda la yimaada 1000 xasanana waa loo qoraa aw yuxatu canhu 1000 khati'a ama 1000 dambaa laga dhigaa cajsigu dad buu gaadhay inay xataa awoodi kari waayeen inay ilaahay baryaan ilaahay baryadiisa xataa inay ka gaabsadaan sawgeed buu nebigu wuxuu leeyahay acjasu nnaasi man cajasa can idducaa acjasu nnaas man cajisa can idducaa dadka waxaa u caajisnimo badan dee ninka awoodi kari waaye ilaahay inuu baryo wa abkhalu nnaasi man bakhila bisalaam dadka waxa kaloo u bakhaylsan buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofka dadka kala bakhayla inuu ku yidhaahdo assalaamu calaykum
السلام عليكم ودعو إن الدتك ودعو عيسى كلا بخيليسا أيها الأحبة هل أنا عجزه مرر بدن بنقضى جهلية مرر بدن بالسبب عجزه كانت تاي أقون درضة وهي سبحان الله دانت أجر كذا قرن إنه أقون درك وهي سطة أقون درضة وحي كانت قفك إنه وحبق بوايو تقدر توقف أيضا له جهلني ما هي سطة ولو حوق بدني ولو الذكاء جيسو intelligence kiisu uu sareeyo walow aqli badan yahay mar haddaanad muntijayna wax soo saaraynin waxay yiraahdaan nolosha waxa qiimaha ku sameeya ma aha inaad aqli badantay ee waxa weeyaan bay yiraahdaan inaad hardware kartahay nolosha taas raad ku leh qof xoog wax u qabtay inaad tahay garadka badan hadduu hurdo dhalo waxba tari maayo si kastoo aad daki u tahay haddaad qof laysiyatay qof aan firfircoonayn haddaad tahay garaad bandidna waxba kuu kordhin mayso ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aan ku tilmaamay qof dhan oo bini aadam ah oo intuu dembiilo noqday arday u noqday tuke qiyaas inaad tuke arday u noqotid tamar darradu halkay gaadhay سدرادد با إلهي وحلي فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين إن آدم كي ولا الكي دلي مركو الدنبقى قيستي ولو حوق وينا يحوق ولا الكي كدلي وقبي kadib aqoon darrada haysatay waxay noqotay si uu galo meydkii walaalkii buu garan waayay ilaahay baa wuxuu soo diray tuka markaa aqoonta ah in wax la xabaalo baray tuka kaloo dhintay god u qoday oo aasay wuxuu baray markaa in wax la xabaalo wuu halaan halay ama wuu calaacalayo wuxuu leeyahay yaa waylata acjastu an akuuna mithla hada alghuraab halaagaygiiyow kaalaye ما وحن كليتا ما وحن كوحتر حماضي إن أن تكها سكلا نقضه إذا جهلي وتكو معلن كاجدي ضد بدن وما أنت الصومالية دوس كفر فرديا وحي لا فرديا وحي قبتان بيجرم واي جهلي كفريسي برسل الله قطع ما قرنايو وحكى لسي الله سمايا ما قرنايو أقونسي الله برتا ما قرنايو جهلي بفريسي جهلي ومركز ضدك ودلية إذن أقونته هي علمه ومن القوة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير قوة الشيء يا أقونتها كمدة ساوغيت أيو النبي عليه الصلاة والسلام إن قال دردار مياه استعن بالله ولا تعجز إلهي كالميسو واستعانة هذا إلهي كالميسو أنا عاجزي قرآن كان إلهي وحي نوت المامية إن بدن با إلهي وحي قرآن كان ورمي غير بنو إسرائيل لليه خذوا ما آتيناكم بقوة وروح عن دين كانوا يدين سودة شني ورسي اجتهادي يفر فرعوني حوق وكتشرو خذوا ما آتيناكم بقوة با إلهي ليه نبي موسى محا إلهي ليه وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها إلهي نبي موسى كلي فخذها بقوة سددال يتمر كتشر تقاضى خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا مركي إلهي النبي يحيى لهد لي وحلالي يا يحيى خذ الكتاب بقوة والنبي يحيى كتابك سحوغا وقادبا ليلي سي جدية سي اجتهاد كجرو سي ددال يفر فرعوني كجرتو إلهي كتابك سوق هذا بالليل وحا قرآنك إلهي وكسفينيا دادك وهسك يا عكسك هيا إن استفادة منافقين تطي وهسك إلهي وحلي إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى منافقين إلهي وعقوت المام صلاة هذا وكعا وكوكعا يجو كسالى يجو
وهسي عاجس هيو ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى صلاة لما يمادان با إلهي يدي إيغو حالة كسوغان مويان أيها الأحبة markaad wahsato acmaashu way isfuulfuushaa wixii maanta kugu habboonaa inaad qabato markaad qaban weydo wayse sii kortaa sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illaahi athaaqaltum ila alard war dadka mu'miniintahu maxaa idinku dhacay oo haddii la yidhaahda ilaahay tiisa usoo baxa jihaadka usoo kaca athaaqaltum ila alardi baa layidhi maxaa dhulka idinku cusleeyey ayaa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala maxaad dhulka isugu nabaysaane u kici kari weydeen aradiitum bilxayaati addunya min alaakhira ma adduunka aakhira ka jeclaateen baa ilaahay leeyahay famaa mataacu alxayaati addunya fi alaakhirati ilaa qaliil ilaa tanfiruu يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا أيها الأحبة kuwa munaafiqiinta jihaadka ka wahsada ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay sifaadka munaafiqiinta ka mid tahay taasi yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum fanfiruu thubaatin aw infiruu jamiica waina minkum laman layubati'anna fayna waxaa idinka midaba ilaahay leeyahay mid dadkaba cagsi gelinayo fadhiisinaya fadhigu markaa caqligana uma fiicna iska fadhiga aan waxba lagu qabanaynin jidhkana uma fiicna aakhirana uma fiicna adduunna uma fiicna lazinessku markaa nolosha meel laba wax kagama leh ee waxa meesha taalla qofka mu'minkii inuu muntij noqdo qof wax soo saar leh inuu noqdo weligaa ha moodina waqtigu ku dhaafay dadka barbaa isle faataka alqataarkay sheegi jireen yacni waqtigiiba tegay intaan meesha fadhiyey inta kuu hadhay cimriga baa wax soo saar yeelan karta waxa laga yaabaa dadka badhaysa oo maanta konton jirbaad ee waxbaad baran karaysaa dad baa konton jirraynta ku bilaabeen culimmadii ugu waaweynay dunida noqday ma garanaysid cimrigaagu intuu ku gabagaboobi doono ma garanaysid inta ilaahay adiga jaanisku siiyey adigoo waxa ku xilka ku saaran wuxuu yahay inaad rumaysato cimrigu weli mutasac baa jira nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo taa inugu dhiirinaya wuxuu tilmaamayaa in qaamat isaaca wa fii yaddi axadikum fasiila fain istataaca an laa taquum xataa yagrisaha falyagrisha nabigu wuxuu leeyahay hadduu qiyaamuhu xaggaa ka soo bilaabo soo kaco oo aad gacanta ku hayso fasiilada waxaa la yidhaha geetimireedka yara la abqaalayo geetimireed yar aad gacanta ku hayso haddaad ka gaadhsiin karta inaad abqaasho buu nabigu leeyahay abqaal beer sawgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa qabla almowt in furas jiro inta geerida ka horraysa inaad fursad haysato fursad wax lagu qabto inaad haysato oo innaga iyadaan qiyaamaba inaan arkaynin baynu fadhinaa unoo leenahay waan gaboobay soomaalidu dee 40 jirkay ku gabowdaa soo maha qofka soomaaligii markuu bini aadamkuba u xoog badnaa markuu gaadho ayuu yidhaahdaa waan gaboobo wax waliba way ga dhammaadeen bini aadamku caqliguu ka gaboobaa haddaad maanka ka gabowdo ayuunbaad gabowday inta kale waxbaad qaban kartaa waxaad yaraysanaysaa wax way noqda waxaad yaraysanaysaa maxaan uga jeedaa sadar quraana inaad qaybtaa waa wax kula yar soo maaha waxaad isleedahay oo haddaan maalin kasta sadar qaybo goormaan qur-aanka dhammayn haddaan sadar qaybo goormaan qur-aanka dhammayn waxay dhahaan 12 sannadood waad ku dhammaynaysaa haddaad maalin kasta sadar qaybto hadda waa sadar hal sadar waxay dhahdaan waxqabadku taraakumka beeritaanku qiimaha ku sameeya markanaad qabanayso waxa yaraantiisa ayay kuu muuqanin haddaad maalintii hal safxa qorto hal page haddaad maalintii qorto sanadkii imisaad soo saaraysaa ugu yaraan 2 buug baad qori kartaa sanad kasta waayo sanadku waa 365 maalmood haddaad maalin kasta page qorto macnaheedu waxa weeyaan ugu yaraan buug 300 page ka badan ayaad qori kartaa laakiin haddaad tiraahdo ma xaashi aan qoray baa buug noqon doontaa maxaan xaashi ka qori doona aqoontu iyo waxqabadku iyo waxtarku taraakumka inay biirtaabay wax ku noqotaa wax kasta oo biira aakhirka wuxuu tagaa maxay wax qiimo leh buu noqdaa
تاسا waxay keensanaysaa inaad waqtiga waxba yaraysanin in wadaada wuxuu ii tilmaamayay jaamacad buu master degree ku qaatay isagoo shaqo kale markaa wada inta uu gaariga soo socday uu gurigiisa ku sii socda buu dhageysan jiray una cajiladii jaamacadda warkeeda inta loo duubo ayuu wuxuu dhageystaa inta maxay uu gaariga sii wado hadda inta gaariga gurigaaga jaamacadda inta tagtay gurigaaga ku sii socota inta aad dhageysato ayaad ku qalin jabin kartaa laakiin waa hadday taraakumto de waa haddaad maalin walba sida tan u dhageysanayso marka waxaan uga dan leenahay camalku iyo waxqabadku iyo waxbarashadu iyo wardigu iyo wax waliba in la biiriyaabay wax ku noqdaan in la joogteeyaabay wax ku noqdaan camalka inaad joogtayso ayuu wax ku noqonaya ilaahayna wuxuu ina leeyahay walaa tahinu walaa taxzanuu waantum laclawna in kuntum mu'miniin war dadka mu'miniinta wahniyu idinku dhicin haniyad jabina hana murugoonina idinkaa koreeyaba ilaahay tilmaamaya haddaa kuwa mu'miniina tihiin haddaad dariiqa iimaanka raacdaan waa koraynaysaan xataa markan awooddaadu intaad qaban kartaa ha yaraata laakiin intaa qabo سوغيت بإلهي القرآن كوحله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين بدنا أنت النبي قاتل معه ربيون معي سايلا دقال قالين كوا ربي لو نسبي داد إلهي سليبي ومي ضعيف وحيد بسو قاري مي إسديب مي إسدول دقين waxay noqdeen dad walow markaa ha lagaba xoog batay wada camalkii ilaahay intay natiijada ka gaadhayaan ayuha laxiba marka xadiiska kan wuxuu nabigu ku gabagabaynayaa calayhi salaatu wasalaam weer tilmaamaysa ereyga low ah wixii kaa tegey tiiraanyadooda inaanad isku mashquulin oo wuxuu nabigu tilmaamay عليه الصلاة والسلام ha oranin bal ma haddaan sidaa iyo sidaa yeeli lahaa waxaasaa soo bixi lahaa saasaa noqon lahay faina low taftaxu waxay furtaa low waa camal shaydaan albaabka shaydaankay furtaa oo maxaa jira alqadaa walqadar mar hadduu ku dhaafo lama calaacalo qaar baa waxay yidhaahdeen low kaanuu cindanaa maa maatuu wamaa qutiluu haddayna la joogi lahayn waa kuwo munaafiqiina waxay leeyihiin muslimiinta soo dhimanaysa hadday iska joogi lahayn nala fadhiyi lahaayeen maa maatuu wamaa qutiluu manay dhinteen labana dileen ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamayaa qul low kuntum fii buyuutikum labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim waar xataa guryihiina haddaa ku jirtaan intii wakhtigu ka dhammaatay geeridu way u iman lahayd baa ilaahay leeyahy subxaanahu watacaala saa awgeed low waxay culamada qaar yidhaahdaan mawducu tacliimkuunbay ku fiicantay ayaa la isticmaali karaa oo maalan jaamacad baad ka soo qalin jabisay wixii aad barataa marketka aan shaqo ku lahayn qof yar baa ku yidhi ila tale markaasaa waxaad ku tidhi maanta haddaan jaaniskaa haysan lahaa low kaan haddaan jaaniskaa haysan lahaa kan maan galayna kaasaan geli lahaa وللتعليم قف كم بعد ربطين هذا والنتيجة أنا وضدا صومر يوم في عناه واحد سكوت ضيدا محي كان كلينا ساس الدرادات بالنبي لها لو استقبلت من أمري ما استدبرت مركي يوت المامي دتكي صاح الدي عمرضا ما حاجة صاح الدي حلالو بكروي هدي جودي هذا هدي وضم حلالو بيسيد هذا أنا ركيج هذا وحي صار في هذا بلاب ملها بالنبي لي هدينا ما صوك حيين ضدكنا ولا حلالو بالهاب النبي عليه الصلاة والسلام علماء وحيد هذا المركع من باب التعليم يما لها هديت هاي وبنان هاي لكن باب علاعلك هديت هاي بإلين ما بنانا وهو محي قل ما شاء الله كان وين ربيستا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وحيد تغي وحبك ما بدالي كرتين ما دام أنا وحبك بدالي كرينين إلهي وحوق الماما وما تشاءون إلا أن يشاء الله
إلهي وحدونا مويانه وحكلا إذنكو دوني كرتان مجرتو إن الله كان عليما حكيما بل وحدك على عالي صحابة لغاية ما خير كساكو جري وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم waxaan ku soo koobaya marka xadiiska dhammaantiiba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay mu'minka waxtarka ah ee nafciga leh ee xooggiisa iyo caqligiisa iyo wixiisu qabanayo nashiidka ku firfircoon qawiga ah ayaa ka khayr badan mu'minka daciifka ah mu'minnimaduna dhammaanteed waa khayr marka horeba dardaarankaana weyna siiyey wixii ina anfacayana inaynu samayno ilaahayna inaynu gargaarsanno cajsiga iyo kasliga iyo waxaana inaynu iska dayno wain asaabaka shay-un falaa taqul haddii wax sidii aad rabtay natiija u dhici weydana ha odhanin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaan sidaa iyo sidaa yeeli lahaa laakiin waxaad tidhaahdaa qul qadara allahu wamaa shaaa facal faina low taftaxu camala ashaytaan صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم